بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كعب أونلاين كوليج كسو دوان إنسان أستاذ كيميكو وكيمستري فصل كاللبات دوكسيغا سري فونتوغا تبترد كيمستريغا أي نكو قادم دون فصل كاللبات أرديدا خالقا معك كعب أونلاين ديغتا وحيدي رجينا إنا تفهمتان عشرة وإلهي إذن فوضيو لما أنتنا إلهي أعمال صالحة هنقودلو آخرنا الجنة إن شاء الله chapterka koowaad waxaynu ku baran doonaa periodic table chapterka koowaad ee form 2ga waxaynu ku baran doonaa periodic table of elements tusaha kalkalka curiyaasha chapterka labaad ee form 2ga chemistrygu waa chemical bonding dabrada kimikeed chemical reactions falgalada kimikeed and chemical equations isleegta kimikeed waa chemical bonding dabrada kimikeed reactions falgalada ay leeyihiin an equation is selectoda chapter saddexaad waxaan ku baran doonaa mole concept and stoichiometry xisaabinta moleska ama fahanka moleka iyo stoichiometry oo chapter runtii muhiim ah chapterka afraad waxaan ku baran doonaa solutions milaniyada chapterka shanaadna gas law xeerarka neefafka shanjan chapter waa chapterada in ugu talagalnay fasalka form 2 manhajkana waa manhajka Soomaaliya 2020ka عشرة وفافاسن يعني كبرنا دونا إن شاء الله كورس كان كميسري فصل كفوم 2 أوكي chapter كواد و periodic table of an elements periodic table of elements وحين كبرنا دونا chapter كان periodic table كا عوانا ذكلا historical development of the periodic table تاريخ ذي وصامري periodic table كا أيامات الاستعمال waxaynu kala ka doonaa modern periodic table tusaha kalkalkan casriga ah ee hadda la isticmaalo blocks in the periodic table gaar ahaan waxaynu ku baran doonaa block lagu magacaabo s block waxaynu baran doonaa electron configuration blocks kama blocks-yada ama qaaradaha uu leeyahay cafan waxaynu baran doonaa electron configuration and periodic table electron configurationska iyo periodic table ka aynu ku daraasin doonaa waxaynu qeybta trendska hababka uu sameysmayo iyo hababka uu yahay periodic table learning objectives marka am learning outcomes ka by the end of the chapter kan marka dhameeno the learner should be able to arday waa inuu awood leeyahay explain advantages ka ay leeyihiin in curiyaasha group loogu sameeyo periodic table inuu ardaygu sheegi karo waa inuu ardaygu qeexi karaa scientists-yaashii ama cilmiyahanadii ka qayb qaatay horumaritaankii uu soo horumaray periodic table ka maanta aysano taariikhda uu soo maray arday dadkii ka qayb qaatay waa inuu wax ka xusi karaa arday waa inuu periodic table ku qaybin karaa laba qaybood groups and periods waa arday waa inuu sheegi karaa xeerarka uu leeyahay periodic table ka waa inuu sharxi karaa astaamaha modern periodic table ka lagu yaqaan uu leeyahay waa arday inuu sheegi karaa maxaa group ah maxaa period ah iyadoo la xisaabinayo curiyaasha inaan u qaybino into blocks s block b block d block f block waa inaan saadaarino groupka periodka blocka curiyaha uu ku jiro anagoo ku dhisayno ratibaada electronada arday waa inuu saadaarin karaa groupka kalka xirmada ama blocka uu curiyaha ku jiro ayada lagu dhisayo waxa la yiraahdo furfuritaanka electroniska trendska waa inuu arday u sheegi kara okay periodic table marka this is the periodic table periodic table kan sheegayna waa kana marka tusaha kalkalka is very important in chemistry runtii aad ugu badcelin wasaaradda sida u soo habeysay international marka taariikhdii uu soo maray ayaan bilaabayna marka laga hadlay periodic table ka waxaynu ku baran doonaa qaybtan internationalska waa laba cashirta ugu horeysa waxaan ku qaadan doonaa international maxana taariikhdii uu soo maray periodic waxaynu ku baran doonaa halkan periodic table marka laga hadlayo waxa la yiraahdo taariikhda uu soo maray maanta waxaan ka hadlaynaa waa taariikh ninka ugu horeeyay ka hadlay waa nin u dhashay waddanka German ee yiraahdo Johann Doberian ninkan waa ninkii ugu horeeyay ee periodic table ka isku daya ama wax ka daraaseeya ninkan wuxuu ka hadlay periodic table ka uu 1828 oo qarniga 18aad ayaa chemistry-yahanka lagu magacaabay Jarmalka u dhashay ee yiraahdo Dobier ayaa wuxuu sameeyay isku day in uu curiyaasha isugu ururiyo si ay isku leeyihiin macna oo markaas waxa la haystay
waxa ahayd soddon iyo kow curiye ayaa markaa leeyahay marka ninkan ayaa curiyaashi wuxuu u sameeyay inuu isugu xiray saddexda ayaa wuxuu u bixiyay waxa la yiraahdo trades saddex kadib marka ninkan muddo kadib aragtidiisa way socon weysay sababta u soconaysana waxa waaye waxa la yiraahdo aragtida waxa u soconaysa waxa waaye waxa isbedel ku dhacay ama curiyaashi markay bateen qaarkood ayaa marka lagu baraaweeyay aragtida la sheegay way qaadan waysa marka taariikhda waxa ka doona in the 18th century qarniga 18aad it was easy waxa fududeeyay to identify in la cadeeyo and remember la xasuusto the proper stand of the elements curiyaasha in 18th century qarniga 18aad it was easy waxa fududeeyay to identify in la xaqiijiyo ama la garto and remember lana xasuusnaado the proper stand of the elements curiyaasha as they halka very few elements curiyaal yar arna on la yaqiinay oo waxay ahaayeen 32 curi ayaa markaas la yaqiinay when many elements marka curiyaal badan were discovered la soo saaray in the 19th century qarnigii 19aad ee proper classifications ablain ama qaybin haboon was required ayaa loo baahday sababtana to facilitate say u fududaato their systemic study in ayagii la daraaseeyo man scientists badan adopter ayaa isku dayay different ways habab kala gedisan to classify ee ku qaybiyaan ee ku ablablayaan the known elements curiyaasha la yaqiinay in the systemic study hab la daraaseyn karo oo la baran karo in 18th century qarniga 18aad it was easy waxa fududeey to identify in la xaqiijiyo ama la garto to remember la xasuusnaado the proper stand of the elements curiyaa as they halka where ay ahaayeen a very few elements curiyaal aad u yar ayaa markaa la yaqiinay oo yar ayaa la yaqiinay oo hay 32 curiye when many elements markaa curiyaalka badan were discovered la soo ikhtiraacay in the 19th century qarniga 19aad ee proper classification ablain haboon was required ayaa loo baahday to facilitate in la fududeeyo their systemic study habka daraasadooda man scientists cilmiyahana badan adopted ayaa isku dayay different ways habab kala gedisan to classify ay ku qaybinayaan the known elements curiyaasha la yaqiinay systemic in the year sanadka markuu ahaa 1828 in the year sanadka markuu ahaa 1828 John Wolfer Dobler ninka lagu magacaabo waa ninka haddana meesha noo saarane waa German chemist misira u waddanka German ayaa first observed markiis ugu horeeyay waxa uu daraasay oo arkay some similarities qaar ka mid isku ekaansha in the elements ee curiyaasha based on asoo ku fiirinayo their proper astaantooda ayuu fiirinaya marka then kadib he tried wuxuu isku dayay to arrange inuu habeeyo these elements curiyaashan with a similar properties ee le astaama isku midka into a group kooxyo of 3 elements saddex curi ay isugu xiray and he called wuxuu ku magacaabay trades xeerka saddexlaha ah in the year sanadka markuu ahaa uu marayay 1829 Johann Wolfgang Dobler oo German chemist mishiran u waddanka Jarmalka first observed ayaa uu horantii soo ikhtiraacay ama soo helay some similarities qaar ka mid isku ekaansha in the elements curiyaasha based on asoo ku dhisay their properties astaantooda ninkan muxuu sameeyay marka wuxuu isku dayay marka inuu u habeeyo curiyaashi saddex idan kadib taraad wuxuu isku dayay to arrange inuu u habeeyo these elements curiyaashan with the similar properties astaantooda into group koox of 3 elements saddex curiye wuxuuna ku magacaabay trades salaanka trade-ka koowaad waa kooxda koowaad ama trade 1 kana waa trade 2 kana waa trade 3 curiyaasha wuxuu isugu xiray marka saddex mujida wuxuu isugu xiray saddex ay isku xiray the elements curiyaasha marka in the same trade ee hal trade ku jira half waxay lahaadeen similar properties astaan isku mid ah salaanka lithium sodium potassium waxay lahaadeen astaan isku mid ah chlorine bromine iodine waxay lahaadeen astaan isku mid ah marka for example to say trade 1 elements curiyaasha ku jira trade-ka koowaad waa kane curiyaasha ku jira lithium oo Li ah sodium oo Na ah and potassium are all metals dhamaantood waa bir and half waxay lahaadeen a valence of 1 kafton hala marka in waxa la soo ikhtiraacay waxa sabab u ahaa ama taariikhda la maro qarniga 19aad markii culumta chemistry ay helayeen curiyaal badan ayaa waxa loo baahan curiyaasha la sameeyo oo curiyaasha marka systemic study oo la daraasayn karo ayaa loo baahay curiyaashan in loo kala socsooco oo marka curiyaasha waxa loo yaqiin in la sameeyo in la dhaho kuwana biri ahaayeen kuwana bir ma ahayn curi ugu horeyn waa copper ahaa curi metal ah marka waxa la qiyaasay si qiyaas loo sameeyay ninka markaan
xilligan sameeyay marka trade 2 curyaasha ku jira marka trade 2 elements oo ah chlorine bromine iodine are all nonmetals dhamaantood waa waxaan bir ahayn group 2 oo trade 2 ga ah ana waxay leeyihiin valence of negative valence waxay leeyihiin عفوا group trade 2 elements curyaasha ku jira chlorine bromine and iodine are all dhamaantood waa nonmetals kuwa aan bir ahayn ana waxay haystaan valence of negative valence-gooda marka la fiirino waa -1 meesha kiima waan cadeyn doonaa waxaan ku cadeyn doonaa waxa la yiraahdo marka la sameeyo waxa la yiraahdo isheeg furfuritaanka ama electron configuration-ka ayaa lagu ogaan karaa si kala delivery groups-ka laga fiirinaya trade 3 elements ku jira oo calcium strontium and barium are all metals dhamaantood waa bir aan waxay leeyihiin valence of 2 kafton laba ah ay leeyihiin trade 2 elements curyaasha ku jira trade 2 oo chlorine bromine iodine are all nonmetals dhamaan waa kuwa aan bir ahayn and waxay leeyihiin valence of negative 1 kafton waxay leeyihiin hal ah valence of 1 waxay leeyihiin kafton hal ah ayay leeyihiin marka trade 3 elements curyaasha ku jira oo calcium strontium and barium are all metals dhamaantood waa bir 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 okay and have xiriin valence of 2 kafton laba ah when he arranged marka ninka markuu sidan wax u sameeyay uu sidan u habeeyay when he arranged markuu sidan u habeeyay elements curyaasha in the same trade oo hal dhinac ku jira in order of their increasing atomic mass wuxuu ku dhisay marka sida atomic mass-kooda u kala badan yihiin oo marka dambe aragtida la diidi doono iyo observer wuxuu arkay that atomic mass-ka curiyaha dhexe atomic mass curiyaha culayska atomka of the middle element curiyaha dhexe was approximately qiyaas ahaan inuu yahay half kala barka of the sum wadarta of the first and also of the first kan ugu horeeyo and the second element curiyaha labaad in when marka he arranged uu habeeyay the elements curiyaasha in the same trade hal trade ku jira in order hub of the increasing atomic mass u kala badan yihiin iyo observer wuxuu arkay that atomic mass in culayska curiyaha of the middle curiyaha dhexe was approximately qiyaas inuu yahay half kala barka of the sum wadarta of the first and last element curiyaha ugu horeeya curiyaha ugu dambeeya in trade kaste ayuu ogaaday macnaha waxaa lagala jeedaa markuu fiiriyay tradeskan wuxuu isku daray culayska curiyaha koowaad iyo culayska curiyaha dambe markuu isku daray wuxuu u qaybiyay labo wuxuu ogaaday culayska curiyaha dhexe dhan inuu sidaas ku soo baxayo ayuu ogaaday marka aan fiirino marka trade 1 marka fiirino lithium atomic mass-kiisa waa 7 potassium waa atomic mass-kiisa waa 39 23 ayuu soo saaray marka laasax wuxuu ku sameeyay marka inuu soo saaro curiyaha hore iyo curiyaha dambe ayuu atomic mass-kiisa isku daray marka average ka lidaa average waa celcelis mass-ka markuu isku daray wuxuu u qaybiyay labo 23 iyo 7 wuxuu ku daray 39 46 soomaan 46 laba u qaybi waxa soo baxay 23 saadaraad wuxuu ogaaday marka in 23 curiyaha dhexe maxaa leedahay lagu soo saari karo habkan oo ah curiyaha dambe lagu daray culayska curiyaha dambe lagu daray culayska curiyaha hore loo qaybiyay labo chlorine marka fiirito marka fiiriso mass numberka chlorine waa intan iodine mass numberkeena waa intan marka waxa rab curiyaha dhexe in la soo saaro waxa la sameeynaa marka labadan curiye ayaa culayska isku daraa labadan curiye culayska marka isku daro waxa loo qaybinayaa laba ayaa loo qaybinayaa 35.5 waxa lagu darayaa 127 waxa u qaybinaysaa laba waa 81.25 marka waa 80 marka waxa warka la soo arooriyay celcelis waxa la sameeyna dhibicshada daraga tag waa 35 lagu daray 127 loo qaybiyo 81 on celcelis waa sida average mugta ay 3 marka la fiirino wuxuu sameeyay calcium waa 40 iyo barium oo 137 isku daray kadibna laba loo qaybiyo 8.5 marka qaabkaas ay ku soo saaray marka maadaama sidaan ay ku socotay ninkan wuxuu keenay heerkan waxa lagu magacaabay heerka saddexlaha marka heerka saddexlaha
marka qayb kaasna wuxuu bixi saddex marka tusaalooyinkan waa noocaas qaabkaas ayaa lagu soo saaray okay muxuu gaaray marka ninka lagu magacaabo Doppler recognized wuxuu xaqiisaday relationships in xiriir uu ka dhaxeeyo between properties of the elements astaanta curyaha iyo atomic weightkiisa in uu wax ka dhaxeeyo ayuu ogaaday therefore waxaa jira marka man elements curyaal badan having lahaa similar properties astaan isku mid ah dadkaas ku not into an kamid ahayn Doppler's law of trade xeerka saddexla oo Doppler u lahaa aan kamid ahayn ayaa jiray marka maxaa ka mid ah marka tusaale waxaan marka curyaha nitrogen marka fiiriso 14 culeyskiisa arsenic marka fiiriso 75 waa labada marka la isku daro marka waa curyaha phosphor la rabo in la soo helo phosphor marka wuxuu la mid yahay labada culeyska curyaha kuwaad culeyskiisa lagu daray culeyska dambe curyaha loo qeybi labo labada marka la isku qeybeena waa 44.5 عندنا حوالي 31 ayaa meesha inoo saar soo 31 saadaraad 44.5 31 lamid maahan markan intan marka kadib maxaa dhacday therefore saadaraad it is AD aragtida ninkan uu lahaa of classification of labelent of elements into trades ee xeerka saddexda was rejected waa la diiday sabab loo diido xawaa isaga marka uu sameynayba waxa la yaqiinay 31 curiye maadaama curiyaashii ay soo bateen aragtidii asiir marka intii la haayay markaas ayuu ku tijaabiyay way iskeeneen kuwii soo socdaan isaga war kama heynine markii kuwii kala imaadeen oo lagu tijaabiyay xeerkii ninkan xeerkan octave maxaa xeerka saddexlaha way qaadan weysay saadaraati xeerkiisi waa la diiday marka xeer kala imaaday gadaalan ka arag doona taariikhdu way sii socotaa ashirka kuwaad halkaas ay ku dhayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh